kismaayaan imid guddi baa la ii soo saaray qoladii raaskaambooni iyo caanola waxay dhaheen waxaan doonaynaa nimankii haddaadan ururkii raaskaambooni ee muasaska ka ahayd aadan shaqadiisii qabanaynin inaan nimankan shareecada islaamka nagu kala xuguntaan wixii aan ku heshiinay oo dhan way ka baxeen sheekh mukhtaar xogayaal buu ka yahay doodaasaan galay niman culimo aan u yeedhay guddi bay ii soo saareen maanta wuu dhintay waxaa mas-uul ka ahaa guddoomiye oo ahaa guddoomiyihii markaa gobolka u joogay oo ahaa ninkii ahaa ibraahim afqaan waxaa ku xigay cabdiraxmaan macalin nuur nin la yoon jiray hebel ciise something like that 4 qof bay ii soo saareen anna qolo kale ay la socotay 5 maalmood 3 maalmood baan fadhinay iyo 2 maalmood oo ka horreysay oo fasaxan kala galnay doodanadii dheereed waxay ku soo dhamaatay waxaan ku war ilaahay wuxuu leeyahay haddaad shay ku doodaan oo diin sheeganaysaan kitaabka ilaahay u noqdo kitaabkan ilaahay ku xukuntama jawaabta la isiiyay waxay noqotay doodaa 3 maalmood iyo 2 dhexda gashay 5 maalmood socotay haddii kitaabka ilaahay aan ku xukuntano waxaan ka hor imanaynaa manhajka xarakada qaacida shacbiyana waan luminaynaa بالله عليكم أي دين يا برنامج كان لوجه هذا هدان قاعدنا واحد كهذا يسون وان كتاب كإله كحجون تنو وحن كهر مننا منهج معني والدستور كأرر كولية وحن الله مننا تاجرات ذاتك وحيان الشيء يا نك أنت دين كشيء يعني maanta ha sheego taasaan ku kala tagnay waxaa ilaahay waa jabbaar ninkii ah ibraahim afqaan oo sheekh mutaaro maxaa lagu dilay ma kelmadda wax ka bedelan baya waxay isku qabteen soo nafs alkalima maayn ibraahim afqaan ereygii aniga uu igu yidhi ee dhiiggiisa lagu banaystayba ee dhiiggayga uu ku banaystayba isaga lagu dilay laftirkiisa sababtoo masaalix yaa la rabaa in la xaqiijiyo wax diin la yidhaha ma jirto masaalix baa laga hadlayaa maanta ninka culimada ee la jooga oo cali iyo cumar iyo xasan iyo faarax aan odhan karayo hal nin oo culimo oo maanta diin kula joogaa ma jiro waxay kula joogaan cabsi iyo dad masaalix iqtisaadi ah ilaa nimankan daraa'ib bay gurtaan xoolihii bay qaataan wax walbay banaysteen intaasaa lagula jooga laba xaalana la gudboon ama culimaha noqoto aniga dagaalka aan shabaab la galay saldana uma soo gelin siyaasad uma soo gelin inaan madaxweyne ilaa federaal noqdo aan awood sii yeesho uma gelin wallaahi ilaahay dartii waxaan la soo galay inaan la dagaalamo oo aan ka jawaabo haddii aan kitaabka ilaahay ku kala baxano waxaan luminaynaa qaacida shacbiya manhajka xarakadana waan ka hor imanaynaa كلمة انت لاكت يا ما انت مسؤوليتي ولا تشوفين شركه مهمه دوليه هاي قانون ورنما كان الدين كما هادليان كوا انا قانون عامه اها oo dababka kan aan dowr asaasiya siinay ba maanta waa milyaneer qaarkoodna ay ku dhinteen xagee ka keeneen waxaan ka shaqeynayaan waa ma masaalix iyo xoolaha la gurtaa meelaha iyaga laga qabto bal dib ugu noqdo fisq Cambodia waanu qabanay waxaan ugu nimid caagan haweenka loogu tago iyo xashiish kale iyo qurun waraa maxay amiirka gabdhaha haweenka wuxuu ku dhigay weerar meesha ay diin waraagan anagu waxaan ku jiray anagu waxaan ma nana aqoonin diin baan ka hadlaynay akhlaaq baan ka hadlaynay qiyam baan dhisaynay dad diin labaanu ahay warmaanta waxay isugu tagay waa project waliba gacmooyin badan oo kale ay ku jiraan baashan dib ha loogu noqdo inaga maxay nala gudboon kuwa aan gacanta ku hayno akhlaaqdooda aan hagaajino dhaqankooda aan hagaajino madaxa yuuqan aan hagaajino balwada aan ka ilaalino sababta maxaa tabriir lagu sameeyaa labada qolo dhalinyarada wadani iyagu intay isku mid noqdaan oo labaduba diinta ka wada tagaan oo fisqiga waxmaantu meel noqoto kulligan waxba inoo taraysa inaguna dawladnimada aan diin ku ilaalino oo dawladnimada aan dhaqan ku ilaalino oo waxa keenaya in intuu nin kale u daliishado uu yiraahdo nin caama loogu daliishado leeyahay sidana yeelana kana yeelan kan ka qaba cilad noqoto macna nooma sameynayso waxaan aad u bogaadinayaa shacabku
waxaan waa volcano hadduu bareesharku bato qaraxu wuu imanaya shacabku maanta way qaraxsan yihiin dareen baa jira aynu isugu wada tagno waxaa jirtay xilligii ingiriiska iyo talyaaniga iyo waddanka gumaysan jireen qaacido 50s-kii iyo waxaa jirtay moogtay fariq tasud la odhan jiray ama divide and rule qayb iyo xukun maanta waxay ku jiraan hadda gobolladan dadka shacabka kacaya waxay leeyihiin ree hebel oo ree hebel la socda dowladda la socota ama ree hebel idinka idin gumaadayaan hadhow ama maanta oo dhan waxaasay ku jirayaan waa nadariyadii gumaysiga waa wixii aan 60s-kii iyo 50s-kii ka gudubnay iyo kasha hadday diiri jeedaan ma dadka isku diri lahayn iyagaa maanta qabaa'ilka isugu diray iyagaa samaynaya dadka aynu garab istaagno shirarkan oo kale hala joogteeyo madaxda qaranku way joogtaa dadka aan u sheegno maanta wadada la qaado inay tahay sax horumar iyo ha gaadheen nolol war faleeba aan u geeyay dad kaloora ku haya intii la jeexjeexada lagu daadiyay biyaha oo leen murtadiin baa idin soo dirtay iyaguna intay lacag soo dirsadaan bay hoosta ka gadanayaan oo qaadanayaan shacabkana way u diidayaan nolol ma taalo war culimoy waxba hoosta ha farorsanin indhaha hoosa u rogina dareen aan jirin ha muujinina waxay dhahaan hal libaax aragta ma godlatay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii hadday fadhiyaan waa iga kala dhumeen wax badan dhihi maayo runtii waxaa si fiican wax fiican sheegay raggii hadlay oo dhan gooni ahaan haddee amiirkaygii hore runtii runtii wax fiican raalli ahaada wax fiican buu sheegay haddii la dhaho taariikhdaas ha laga daba tegayaa waa wax u baahan asfaar dhan in laga qoree wax kelimo iyo 2 iyo 3 lagu sheegi karo ma ahane in aad u yar buu sheegay runtii laakiin ciddii og baa og ciddaan ogeynna ma ogo waxaan leeyahay nabiga wuxuu yidhi ayu yowmin hada khudbadiisii xajatul wadaac waxaan leeyahay waxyaabaha qaarkooda waa iska raad arooriyaade hal la socdo wuxuu markuu nabiga yidhi maanta waa ayaantee wuu ogaa nabiga laakiin iyagu xasuusinayay waxaan leeyahay shalay jumcay ahayd mashakiya ku jiro maanta inay sabti tahay aan ogaano aan soconno aad u mahadsantihiin runtii shirkan socday mudday culimada iyo wasiirada iyo ugaaso iyo xildhibaano dhammaan maamul goboleedyada isaga yimid ayaa meeshan joogay way niqaasheen way isla hadleen waxbay isweydiiyeen aad baa loo wada hadlay waad maqlayseen warmurtiyeedkii waa la akhriyay ani wax badan dhihi maayo ta'aduban iyadoo ra'iisku uu joogo iyo ra'iisul wasaaruhuba iyagaan siin doonaa kalimaadka u banaynaya laakiin waxaa la iswarsaday horta nimankan waa ayo waad maqlayseen culimadu waxay dhaheen nimankan khawaarij baa la dhahaa intaa waa maqasheen Soomaa waxaa la yidhi ma lala dagaalami karaa haabay dhaheen dagaalkoodii waa noocee bay iswarsadeenoo waxay dhaheen waa waajib waxay iswarsadeen war nimanku waa adag yihiin baa laleeyahay ma laga adkaan karaa waxay isku raaceen in laga adkaan karo qaar baa isweydiiyo waxaa la yidhi tusaale mana tusi kartaan haa baan nidhi mayd maxaa ugu dambeeyey kan hadda la sidee reer hiiraanaaba iska soo kacshay inta kalena waa iska kicin karta marka hadalka waxaan siinayaa kusoo dhaweynayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ra-iisul wasaare kusoo dhawow